maamulka gobolka iyo degmada Xudur shacab weynaha degmada Xudur ardayda dhalinyarada aqoon-yahanada hooyooyinka isboortiska shacab weynaha degmada Xudur iyo gobolka Bakool oo dhan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan waraysiinku mahadnagay hadhawaayow ka fayle oo isin hana dhawaayteen waraysiinkooyay geekasiin la rooga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu go'aansaday inuu isu kooyo Xudur dadka Xudurna araga wali jeelna hoo ilaahay yarra dadka Xudur sida fayle sharafta leh oo dawladnimada injeeliyin midnimada injeeliyin wanaagga iyo horumarka iyo ka tilaabsadeen in dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalka galanka siida la garab suruma horliin dareera sharaf iyo horumar iyo gobonnimada ka dareertaan ammaanka sida isin ka dadaaleen sida isin inis xilqaanteen meel kastoo isin roogdaan ka sheegnay waana galana la kinsiin doona insha Allah eedeeda mahadsantiin geekan hadalay mee wali nin roogay ra'iisul wasaaraha siin ka dhawaaye ra'iisul wasaaraha siin la hadali doona insha Allah eedeeda mahadsantiin mudana ra'iisul wasaare hadawaaw koonfur galbeed ka dhawaaw xaruntii gobolka Bakool ka dhawaaw degmada Xudur ka dhawaaw dad eedkiin jeel dawladnimada Soomaaliya jeel dawladnimada iyo midnimada iyo wadajarka Soomaaliya jeel horumarka jeel ka dhawaaw eedeedan mahadsantiin